السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين با خيارتان هودا صاحبها كنا هيو halkani waa Mareeg Media qodobada warkeen ugu door korona idinku haynana waxa kamid ah banaanbaxyo xoogan oo ka dhacaya dawlad-deegaanka Soomaalida ee u afduuban dalkaas Itoobiya maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida iyo guddiga doorashooyinka dalkaas Itoobiya oo khilaaf xoogan soo kala dhaxgalay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas la tiriyo war-saxaafadeed ka soo saartay booqashadii ra'iisul wasaaraha dalkaas Itoobiya fadhiga golaha shacabka Soomaaliya oo qalalaasa ku soo dhamaaday madaxda maamul goboleedka oo shir uga socda xarunta Xalane iyo midowga musharaxiinta oo la sheegay in halkaas looga yeeray doorashada dalka Djibouti Zakariya Ismaaciil waa musharaxa kaliya ee la tartamaya Ismaaciil Cumar Geele qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah iyo barnaamijkeena ku maqli doontaan hadii baraali ka noqdo isku soo noqod wanaagsan khiyaarta qiibaha qadarinta mudan oo aan ku bilaabay waxa la sheegayaa banaanbaxyo xoogan inay ka dhaceen deegaanka Soomaalida khaasatan gobolka City banaanbaxyadan oo la sheegay inay saaka halkaasi dad shacab fara badan isugu soo baxeen ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen waxaanu doonaynaa xuquuqda aanu ku leenahay dalka Itoobiya si kastaba ha noqotee waxa la sheegayaa in khilaaf xoogan u dhaxeeyo maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida iyo guddiga doorashooyinka laba bari ka horan bay ahayd markii guddiga doorashooyinka dalkaas Itoobiya ay sheegeen 7 magaalo oo kamid ah ama 8 magaalo oo kamid ah gobolkaas City inaysan ka qayb galaynin doorashada dalka Itoobiya arintaasi waxa ka hor imaaday maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida oo sheegay in ay qasab tahay in deegaanadaasi iyo degmooyinkaasi ay qayb ka noqdaan doorashada dalkaas Itoobiya waxa sidoo kale la sheegayaa in guddiga doorashooyinka mar kale inay warqad u soo direen ay uga hanjabayaan ama ay ku handadayaan maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida oo hormuud yahay Mustafa Maxamed Cumar dalka Itoobiya ayaa la rajaynayaa bilahan inagu soo foodla in ay doorasho ka dhacdo balse 8 magaalo oo kamid ah gobolkaas City ayay dawladda Itoobiya ku sheegtay in aysan iska soo sharixi karin Soomaali iyo Canfartoona kadib markii deegaanka Canfarta todobaadyadii la soo dhaafay ka socdeen banaanbaxyo ay ku sheegeen in ay ku raadinayaan xuquuqda 8 magaalo ay sheegeen inay Soomaalidu ku xoogtay sidoo kale Soomaalida degan 8 magaalo ayaa u arkaa iyaguna in lagu xadgudbay xuquuqdooda Itoobiyana ay indhaha ka laabatay inay ka hadasho arrimaha la xiriira magaalooyinkaasi si kastaba ha noqotee maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida ayaa war cad ka soo saaray waxaana ay sheegeen inaynan mar raba raalli ka noqonaynin in halkaasi doorasho ka dhici weydo waxa sidoo kale ay sheegeen xukuumadda maamulka dawlad-deegaanka Soomaalidu in ay deegaanka leedahay Soomaali dadka ku noolina ay yihiin Soomaali jibna tahay in doorashada ay ka wada dhacdo deegaanka Soomaalida haddii ay ka dhici weydana in doorashada dib loo laalo maamulka dawlad-deegaanka ayaa sidoo kale ku booriyay xisbiyada kale ee mucaaradka ee ka sharaxan deegaanka in sida xisbiga barwaaqo kale ay u muujiyaan orahdooda ku aadan magaalooyinkaasi xuquuqdooda ay guddiga doorashada Itoobiya ay sheegeen inay ka soo qayb galaynin doorashada dalkaas Itoobiya daraadun bay ahayd markii maamulka Mustafa Maxamed Cumar uu arintaasi shaaciyay inuusan raalli ka ahayn sidoo kalena ay baaq ku direen ay ku dalbanayaan maamulka dawlad-deegaanku in xisbiyada kale ka sharaxan deegaanka sida ururka ONLF in ay ka muujiyaan araahdooda ku aadan magaalooyinkaasi ay guddiga doorashooyinku sheegeen inaysan qayb ka noqonaynin dalka doorashadiisa ashalay bay ahayd markii ururka ONLF ay ka soo saareen war-saxaafadeed la xidhiidha arrimaha ka jira caqabada ka taagan 8 magaalo ee kamid ah gobolka City ee dawladda Itoobiya aan iraahday guddiga doorashooyinka Itoobiya ay sheegeen inaysan qayb ka noqonin doorashada ka dhacaysa dalkaas Itoobiya guddiga doorashooyinka oo laba bari ka hor soo saaray dambaalkaasi ayaa waxay ku xuseen in magaalooyinkaasi aysan iska soo sharixi karin Soomaali iyo Canfartoona sidoo kale waxay sheegeen guddiga doorashooyinka in magaalooyinkaasi ay ku yeelaan xuduudka u dhaxeeya labadaasi beelood sidoo kale ururka ONLF waxa ay sheegeen in marnaba aysan raalli ka noqonaynin in dhul Soomaali leedahay qaybna laga tago doorashada qayb ka noqon mahayaan qaybna ay leeyahay waxaad ka qayb galaysaan doorashada dalka Itoobiya afayeenka ururka ONLF Cadaan Hirmooge ayaa sheegay in maamulka ururka ONLF iyo maamulka dawlad-deegaanka Soomaalidu inay isku mabda ka aaminsan yihiin in ay qasab tahay in magaalooyinkaasi ay qayb ka noqdaan doorashada sidoo kalena waxa ay sheegeen magaalooyinkan ururka ONLF inay yihiin magaalooyin aan wada hadal gali karin oo ah dhul Soomaaliyeed Adanka kale waxa la rajaynayaa in dawladda federaalka Itoobiya ay arrintan soo farageliso maadaama ay isku dhagan yihiin maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida iyo
guddiga doorashooyinka dalkaasi Itoobiya arrimo la xidhiidha magaalooyin ay sheegeen guddiga doorashooyinka inay ka tagayaan oo aysan qayb ka noqonin doorashada ka dhacaysa bilahan lagu soo aadan dalkaasi Itoobiya. Adanka iyo haddii aan u leexano dalka Eritrea, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlayso arrimaha la xidhiidha booqashadii uu ku booqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Asmara. waxay sheegeen wasaaraddu ay sheegtay arrimaha dibadda ee Eritrea in ra'iisul wasaaruhu ay ahayd booqashadiisu in ay ka wada hadlaan labada wadan xiriirkooda iyo kor u qaadida in labada wadani ay sii noqdaan saaxiibo dhow iskana kaashadaan arrimaha la xidhiidha colaadda iyo abaaraha iyo sidoo kale cudurka COVID-19 ee waqtigan xaaliga adduunka faraha badan ku haya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea ayaa iska fogeysay in uu ugu yimid ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya in ay ka saaraan ciidamadooda ku sugan gudaha ama gobolkaasi Tigreega. waxay dhawaan u sheegeen dowladda Eritrea in ciidamo ay leeyihiin aysan ku sugnayn gudaha dalkaasi Itoobiya, walow dowladda Itoobiya ay xaqiijisay inay jireen ciidamo ku sugan gobolkaasi Tigreega oo caawinaya militariga Itoobiya kana yimid dalkaasi Eritrea. hadalkaasi markii uu soo baxay labada dhinacba ay sheegeen afdhaafaya ayaa waxay suurto gashay inuu shalay booqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya caasimadda Asmara. warar hoose oo hayna ayaa sheegaya in booqashada ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ay ku salaysneyd in labada maamul ay ka heshiiyaan arrimaha la xiriira oraahda ay ka hadlayaan ama ka oranayaan dagaalada ka socda gobolkaasi Tigreega. walow toddobaadyadii la soo dhaafay labada maamulba ay soo saareen war-saxaafadeed kala gedisan oo iskhilaafaya beesha caalamkuna ay cadaadis xoogan ku hayso labadaasi dal arrimaha la xiriira colaadda ka horeysa gobolkaasi Tigreega. waxaa la aaminsan yahay labada dal waa Itoobiya iyo Eritrea inay u dhaxayso colaad xoogan oo soo jireen ahayd oo ay iskaga dhinteen kumanaan colaadani oo la xidhiidha xuduudka labadaasi dal, balse waxa ay ka heshiiyeen markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya uu ku soo booday xukunka ee halkaasi laga saaray xisbigii hogaaminaya dalkaasi Itoobiya ee TPLF. sidoo kale waxaa la sheegayaa dowladda Eritrea inay adag tahay sidii looga saari lahaa kol haddii ay cagaha la soo gashay Itoobiya ay adag tahay in laga masaafiriyo gobolkaasi Tigreega. sidoo kale waxaa la sheegayaa Abiy inuu sheegay in ay heshiis dhab ah wada gaadheen Eritrea iyo dalkaasi Itoobiya sidii ciidamada Eritrea ay uga bixiyeen sida ugu dhaxsa badan gobolkaasi. balse warar hoose oo helina ayaa sheegaya dowladda Eritrea inay ka cagajiidayso inay ciidamadeeda ka saarto. dadka falanqeeya siyaasadaha caalamka qaybahooda kala duwan ayaa sheegaya in dowladda Eritrea ay qabta xanuun weyn oo rabaani ah in ay shaki weyn ka qabto in dowladda Itoobiya ay ku laabato deegaanadii dhawaan ay u celiyeen ee colaadda xoogani ka horeysay kumanaanka iyo boqolaalkuna kaga dhinteen labada dhinacba horaantii 30 sano ka hor. Adanka iyo Soomaaliya haddii aan u leexano kulankii uu maanta u balansanaa aqalka hoose ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in lagu kala dareeray halkaasi kadib markii uu ka dhashay buuq iyo qalalaase kulankaasi. xildhibaanada ayaa horaantii lagu sheegay in xubnaha golaha shacabku ay ka fadhiisan doonaan arrimaha la xiriira cudurka COVID-19 hase yeeshee golaha baarlamaanku marka ay soo buuxdhaafiyeen guriga looga arrimiyo dalka Soomaaliya ayaa waxaa soo baxday xan hoose oo sheegaysa in dowladda waqtigeedu dhamaaday shirkani loo abaabulayo uu yahay mid loogu muddo kordhinayo. arrinta kadib ayaa halkaasi waxaa ka dhashay qalalaase xoogan oo ay ku qaybsameen golaha baarlamaanka, kadibna waxa ay tagtay in meeshu ay isu bedesho buuq iyo sawaxan oo nin waliba mikrofoonka uu isku dayo inuu isagu gacanta ku dhigo handado. dhanka kale waxaa maanta xerada xalaneed ka furmay shir gaar ah u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada ee Soomaaliyeed. halkaasi waxaa la rajaynayaa inuu shirkaasi noqdo shir ay lagu heshiisiinayo 5 madaxweyne maamul goboleed ee Soomaaliya. shirkani waxaa ka soo qayb galay sida la sheegay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland iyo madaxweynaha maamul goboleedka Siciid Dani, sidoo kale Qorqor iyo Cabdicasiis Laftagareen iyo sidoo kale Cali Guudlaawe. kulankani waxa uu daba socdaa kulano hore oo ka dhacay gudaha Soomaaliya oo lagu raadinayay sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxda Soomaaliyeed. kulankani diiradda lagu saarayo ismariwaaga ka taagan furitaanka shirka wada tashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo kaas oo ay si weyn uga diidan yihiin labada hogaamiye waa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland.
si kastaba ha noqotee madaxda maamul goboleedka halkaasi ku sugan ee shirka ay beesha caalamka ugu qabatay ayaa la sheegayaa in ayaga laftirkoodu ay kala shirkisan yihiin maadaama madaxda maamul goboleedka qaybo ka mid ah lala xidhiidhinayo inay saaxiib dhow la yihiin dowladda federaalka ee wakhtigeedu dhammaaday waxaa sidoo kale shirkani qayb ka ah sida la sheegaya beesha caalamka iskuna dayeysa inay waanwaan ka gaadho khilaafaadka xooggan ee hedheeyey doorashada dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay galabta in shirkani lagu casuumay inay kasoo qaybgeli karaan midowga musharaxiinta Soomaaliyeed dana balayno eegno dhanka iyo dalka Djibouti iyo diyaargarowga doorashada la rajaynaya dalkaasi ka dhacdo musharax Zakariya Ismaaciil Faarax ayaa ololihiisa doorasho ka bilaabay gobolka Carta isu soo bax uu degmadaasi ku qabtay ayaa waxa uu ku soo bandhigay waxyaabaha uu doonayo inuu qabto haddii uu xilka ku guuleysto musharax ayaa farta ku fiiqay in haddii doorashadan uu ku guuleysto uu wax badan ka bedeli doono nolosha shacabka Djibouti waxa uu intaasi ku diray inuu diiradda saari doono maalgelinta shacabka reer Djibouti si saboolnimada loo yareeyo reer Carto waad salaamatiin gabigiinu sidee maanta shacabka dalka loo qiimeyn lahaa bas waa taa waxa dadka naga horeeyay dadka kali magaalo wadankay dhiseen waan dhisnay bay yiraahdeen inna way dhiseen inna way ka maqan tahay laakiin maanta anagu dadkan inaan dhisno doonayna hadduu ilaahay walaalahayo wadankeena 44 sanadood wax badan waa la sameeyo been sheegi mayno waa xaraan wax badan waa la iloobay maanta waxa la iloobay 90% shacabka la iloobay boqolkiiba 90 maanta inna kamaantan ina kallay ama gabadha ama wiilka chef la yiraahdo 300 ku qaata maanta wali waa miskiin weeyaan waayo noloshu aad iyo aad bay qaali u tahay Zakariya Ismaaciil Faarax oo ah musharaxa kaliya ee la tartamaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele isagoo si madax banaan u ordaya ayaa dhanka kale sheegay in Djibouti ay ka jirto isku dheelitirnaan la'aan dhanka dhaqaalaha isla markaana shacabka inta badan ay sabool yihiin ayna jiraan shakhsiyad hanti badan haysta waad arkaysiin maanta dalkeenu nin irka lacag la jooga iyo ku beerka dhulka ku hayaa jira class maayeekii ma jirto waa soo celini doonaa haddii ilaahay kolka walaalayaal waad arkaysiin maanta diyaaradan fiisoyaan kicinaynaa boorar baan dhisaynaa iyo aeroboorro melihiin horta shicibkan dhisaynaa baan leenahay maanta inaadad iska eegtaanna xanuunkan masiibaleeye yimid maask iyo kala dheeraata waxaana inoo bannana walaalayaal bisha 9 hadduu ilaahay idmo doorashada madaxweynaha Djibouti ayaa lagu wadaa inay qabsoonto 9 bisha Abriil ee soo socota madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii shanaad isagu u tartamaya doorashada madaxweynenimo doorashadana waxaa qaadacay musharaxiintii ugu cadcada dhanka mucaaradka oo iyagu sheegay inaysan doorashadan u muuqan mid si xor iyo si xalaal u dhacaysa